xaaskaagii lagu soo Dimashi Rayane soo dhawow. maxamedow idinlama hadlayo Rayaanay qamarow Rayaanay waxba kuu rag sheegay baa sheekaysanay ninkan inuu dhageyso dhiiqo ku geliyo rabaaye uu baxar ku geliyo oo dadka kugu diro ee daacadnimo ma Rayaanay dhageyso ma ka baxa life dhageyso rag baa wada hadlayay kaadi dhiiqa man gelin lahaa ma aha adoo dhiiqo gelin inuu rabo inuu dhiiqo ku geliyo sama waxaan ku dhahay Soomaaliya dhan waan jecelahay laakiin Somaliland darbaan ahay dawlad baan ka imiyay dad intaasna dhiiqa maaha Rayaan inaan dawlad ka imid ma been baa no been man dadkan ka imid waxay aaminsan inaan aamin ama been baa maya ma xumaan baa mayde marka dhiiq way inta un baan caawoodan sheegaya dhiiqada ii sheegaysaa maxay dhiiqo inaad gelin waa u jeeda laakiin hadduu rabo inuu ku geliyo maba gelayo dhiiqada dadkan ka imi ee Soomaaliland ku nool waxay aaminsan yihiin baan aaminsanahay wiilkan isaga xornimo u baahan isagu muxuu hubiya iga baahan yahay iyo saanad iyo hiil no ayada Isagan garab qabin taagnahay. waayo qolka caadiga iikaadi wax yar axriikaadi rayaanay kaadi adu Rayaanay ka dhaxda rayaanay qamar waa 20 jir kamana weyni haddaad dareemaysid inaan anu ka aqli badnahayna meesha ka daji oo la baxso haddaad ku kalsoon tahay aqli badan taa waaba qof iska dhintay ma adiga qofka aqli badan dee soo adigan soo qabsaday qamarow baxsada ku haya hoos no waxa wadaa ma taqaana anaa kuu sheegay ninkan waa nin daacad qamarow hadda ma xaaska laakiin adiga two face wax la dhahaa isticmaalaysa you know hadda qamarow ma adiga intaad waxba ii sheegi weydo macnaha maxaa kale marwadaad ii wacday inaad yar bal hay dimaashi Rayaanay waan soo gabagabeynayaa ka bax Xuseen oo dhageyso nin maanta hadday cid garab u baahan tahay u baahan maxaan ku gargaaraa anigu nin dal iyo diin iyo dad iyo ciidan labaan ahay maxaan walaalo kugu taraa May barnaamijka ka kor. hanado iikaadi meel bay imaraysaa meel macaan bay imaraysaa kaadi niyo meel macaan bay imaraysaa hanado waa isaga taataatay hay hadalka dhamayso dawladdaydii iyo dalkayga iyo Soomaalilandnimadeedii bu Xuseen diiday inaan isagana runta u sheego maxaa diidaya hadalka marka dhamaysatid baan ku jawaabaya haye war waan dal baan leeyahay lacag baan leeyahay ciidan baan leeyahay qaran baan leeyahay safaradaan leeyahay walaal maxaan kugu taraa aan kugu caawiyaa aan hadla marka cidna waxba kama sheegay okay haye jawaabtaada hadii jawaabtaada adigoo Xuseen ahaan maxaan kugu may hadii su'aashaadu inta tahay jawaabtaada ana ku siinaya saan kugu dhageystay ii dhageystay si sharaf leh niyo hawl Xuseen cidna ma talin sheeg laakiin de ina adeer ilaa iyo hadda anu hal kelmad oo khaldan oo shakhsi ahaan kugu dhahayna ma jirto kumana caayin reerkaaga ma caayin cid aan caayin malaha aniga adiga siyaasad baan caawa ka hadalay iyo qadiyad awda lambaad ka hadashay iikaadi ina awda lambaad ka hadashay dadkayga iyo dalkayga jawaab hadashay jawaabadi su'aal baa weydiisay jawaabi iikaadi anigu wiil Soomaaliyeed baan ahay Ethiopian dagaal kula jira Soomaali galbeed baan degaa calanka buluuga ba calankayga ah Soomaalina uqdad kama qabo ogaadeen baan ahay maantana Soomaaliya aniga ayaa ra'iisul wasaare ka ah insha Allah ta'ala laakiin adigu Soomaalinimada ayaad ka cararaysaa naftaadana been baad u sheegaysaa adigoo caawa hoteelka aad jiiftid baasaboorka Soomaaliya ku jiifa ayaa haddana waxaad ii leedahay qaran baan ahay haddaad qaran tahay baasaboorka Soomaaliya caawa hotel lagagama kareeyeen inaad hadalkayga aan dhamaysto me finish my topic meeshaan deganay madi weydiisa hadalkayga aan dhamaysto please waxa adiga dhees aniga dheh lambar 1 fanaan baa tahay kuma banaana qabiil iyo siyaasad iyo qabyaalad inaad gashid waad ku xiran tahay saacada laga bilaabana 3 bilood oo dhaqan toosin ku diray caawa waa lagu xirayaa sababtoo ah fanaanka iyo bayloodka iyo dhakhtarku qabyaalada waa ka banaanka heesahaagaan dhegaysanaa waa beenta walaal inaad aniga caawa ilo hormaatid Bob Marley muxuu ahaa inaad hadalkaan dhamaysto
hadalkayga markaan dhammaysto anoon ku caayinin adoon i caayinin baad ii jawaabi kartaa aniga nin wiil Soomaaliyeed baan ahay qof kaste wiil iyo gabadh ama oday caawa halkaa fadhin lahaa sidan unba kuula hadli lahaa jawaabtan oo kale su'aashan oo kale unba macnaha kugu samayn lahaa aniga nin Soomaali baan ahay calanka buluuga ah baa anigu ku aqliyeystay ma garat calan kale oo aniga aan aaminsanahay macnaha aniga ka qabiil ahaan ogaadeen calan aniga xaggayga ka taagan oo aan gaalada kula dagaalo oo aan jeclahay dhiig u daadiyo ugu jira ogaadeenaya saas ay tahay calaamada calanka buluuga aba dhexda kaga yaala aad baan u jeclay calanka ogaadeenaya because amxaara badanna waan u laayay amxaara badanna anaga noo laysay saas ay tahayna anaga calaamada buluuga kama cararno adigu laakiin buluuga dhan baa ku dhibaya shaar buluuga ma gashan kartid hotel buluuga ma seexan kartid cudur buluuga kugu dhacay baasaboor ma lihido caawa baasaboor calanka buluuga muusabix dhageyso war calanka buluuga muusabix baa intuu diyaaradu qaatay Itoobiya u rusheynay goorma adigu shalay baad u dagaalamaysa laakiin anigu daraad baan u dagaalamay daraadiya shalay keeba dhow muusabix Soomaali eeg muusabix Soomaalidu oo dhan ma necla Itoobiya markuu la dagaalamayo qof kasta YouTube ku keegi kara okay way goormuu dagaalamay muusabix hal kalan kugu dari doona qamaro hal su'aal oo kala kugu dari doona bal waxa dhageysataa waraysigu war waa hal eray waxa dhageysataa hay caawo dhan baa hadlaysan dhageysa show dambe muusabix cabdi show dambe oo aad qabsanaysid qof Soomaali ah oo reer Muqdisho ama Soomaalinimada aaminsan oo show adiga aad leedahay ku imanaya maadaama aad aaminsan tahay wadan gaar ah inaad tahay siyaasadna aad gashay dhalinyarta Soomaaliyeed iyo qof kasta oo muwaadin oo calanka buluuga aaminsan qamar wuxuu aaminsan yahay wadan gaar ah inuu inaga yahay show haduu qabsado burcaha ku qabsado iyo Hargeysa from today wax show ah iyo heesa aad noo soo qaadaysid iyo show aad noo qabanaysid arinta aniga qoful saaray log baan saaray waana qofka muwaadinka ah sidoo kula hadli lahaa haddaba haddaad wadan tahay burco iyo Hargeysa haddaba su'aashaada ma ka jawaaba nabada kugu geeyay ma ka jawaaba in aad ersiida waxaan leeyahay yaan ka jawaabo walaalo haydii qadaynta walaalo haye sida waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dad iyo dal iyo calan baan ka yimid ummad baan ku soo dhex noolaa calan baan ku soo hoos koray anoo yar oo ciyaala calankaasan ku soo hoos koray calan buluug weligii maarag markaan xamar imid ba calanka buluuga igu horeysay dadkayga iyo dalkaygu waxay aaminsan yihiin 7 milyan ee Soomaaliland ku nool waxay aaminsan yihiin haddii aan aamini waayo ilma xaraan baan afaan wax badan baan soo maray dhibaato badan baan soo mariyay dad badan baan laga dilay oo nooga dhintay Soomaalinimo calanka buluuga iyo xidigta cad ee ku taalaba anaga xamar keenay wax badan baan ku faa'iidi weynay markii aan waxba ka faa'iidi weynay go'aan baanu gaadhnay inaanu dawlad noqono dawlad haddaanu go'aansanay inaanu noqono dhibaato aan Soomaali ku hayno inaanu dawlad noqono ama xumaan ay ku haysaa ma jirto inaanu dawlad noqono qof ay maanta dhibaysaa ma jirto haddii aanu dawlad noqonona ummadda Soomaaliyeed un baan wax tari leyno aanu faa'iido noqon leh sawir cad ma ummadda Soomaaliyeed ma caayayo xumaan uma hayo laakiin dawladdii deberigii hore ee fogeed dhacday un baanu ka tirsanaynaa waxa dhacay dawladda imika joogta Soomaaliya waxaanu ka tirsanaynaa ma jirto ma faham dawladda hadda ka talisa Soomaaliya iyo dawladihii hore ka talinayay waxaanu ka tirsanaynaa ma jirto dawlad hore oo soo martay Soomaaliya oo dhibaato weyn oo geysatay jirtay waanu iska dhicinay ma fahantay Xuseen haddaba nooma qirsan in dhibaato soo gaadhay labadayda keeba Soomaaliya haddii uu qiri lahaa xataa in waxna soo gaadheen waan ogolaan lahaa inuu qof Soomaaliyeed oo adigu ma inaan Soomaali ahay baad dood ka qabtaa wallahi shaki baa iga galay way qofkii xamar diyaaradii xamar laga soo diray baa intay xamar ka soo duushay bay Jabuuti ka degtay oo uu ninkii wada yiri dadka Hargeysa ku nool ma duqayn karo adoo Xuseen sidaad u qiri weyday dhibaatooyinka soo gaarsiiyay ninkii xamar ka soo duulay ee diyaaradda gacantiisa
eeg niyo ninkii anigu diyaaradda niyo gacantiisa ku waxaad ka waday hadlaysid anigu war dhegeyso dhegeysadee niyow dee ma dhalaninba mana arkin meelaana joogin baad ileedahay waxbaad ma anaa arkaya adoo lagu dilayo ma anaa arkay maba dhalaninba waxaad ka anigu calankaa buluugaa baan macnaha ku hoos dhashay isagaana aqaanaa ma garatay dhiiggayga inuu buluug noqdo wax yar baa u jiraa anu kanaan aqaanaa adu kan hadda waxaad i tiri inaad soomaali tahay shaki baa igaga jiraa war ani haddaanan muwaadin ahayn golariga igumuuna jireen calanka buluuga niyo qalbigayguu ku jiraa baraada maalmo aan qiiroodaa jiro albaabka intaan isku soo xidho aan wadaninimo la ooyaba aniga oo ani aan isgaraaco baa jirta sida hindiya waxaa jirta hindiya maalin la isgaraacaa jirta maalinta waxaa la yidhaha shaambuugga dhagax baa la isla dhacaa maalin aan gurigu isku soo xidho oon calan isku garaacaa jira aniga waan qiiroodaba haddaana wadani ahaynna golorigayga iyo taleefonkayga calan buluuga muuna aniga igu dhex jirinte adoo haddaad saas ka qabtid anoo cawaale waan ku seexdaa baraada qadiyadana dee igu sawir iyo waxaa ma aha dee moobalkaygoo dhan buu ku wada dhex jiraa 2 taleefon baan wataa kaana waa laga dhexeli hadda haddaan baadho kan calanka buluuga waa laga dhexeli kanna waa laga dhexeli marka inaad i tirahdid soomaali maba tihidba oo dee aniga aad igula meereysatid caawa wakaaniyo ikaadi meel kastoo aniga calanka buluuga igu jira wakaa aniga dhanbaba calanka buluuga meel kastoo aniga igu jiraay war haddaan isqaawiyo buumadayda anu waa buluugde buumadayda xataa buluuga meel kastuu iigu jiraa marka saaxib ilaahay baa soomaali iga dhigay waana ku qanacsanahay anu inaan soomaali ahay meel aan ooga socdo soomaalinimadeydana ma jirto ilaahay baa iga dhigay cid ii bedelaysa ma laha soomaalinimadeeda waan ku qanacsanahay baraad ma garata adigu ma taqaanay maanta soomaalinimadii uu ilaahay kaa dhigayba haddaada ku qanacsaneen oo aad leedahay waddan gaaraanahay iyo waan go-iyo meel heblan aadi anigu waxaa waxba igama gelin anigu soomaaliya inay soomaali leedahay baan ku dhashay ku arkay ku maqlay aqaanaa bas qabiil intuu go-ayo dhahaya waddan baan noqonaynaana dee hadduu noqonayo anigu ooma diidani haddaad maanta waddan gaara noqonaysaan maana igala tashanaysaan maya ani igalama tashanaysaan wax kastaba dastuur iyo nidaam iyo wax loo maruu leeyahay marka saaxiib xuseen ma maqlaysaa anu idin ma maqlaysaa ilaahay ha idiin siyaadiyo waxaad haysataan xuseen ma maqlaysaa soomaali baa iskale ilaan dheere mawduuca naga soo gebagabee qamarna iska fasax abtigay la jandhalay weeyaan waa doodeen saacad wax intaa ka badan yaanay magaranaysaa waaga magaranaysa qamar abti ma maqlay qamarow khadkaa ka xun ma joogaa u malaynayaa way bes naga daalaan dheere xaggii fanka iskaga noqonaynaya baashaalkeenii intaa qadiyadda iyo waxaas halkaa kaga dhaca laandheeruhu laba ere hadraawi wuxuu yidhi 3 ere halkii doonay 30 yaanay kaa qaadan marka waxba hadalka ku turbaynina waa doodeen isagana mabda buu aaminsan yahay adna mabda baa aaminsan tahay dee soomaalina way idin dhexaysa way idin daawanaysa qamarow hayahanado waqti dambe ku iska saxadee saxan kaadi qamar mudug jira